عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة waxaan u taaganahay xalfadii ducadii soo dhawaanta ee ra'iisul wasaaraha anigoo ah Badr Xuseen Sandool matsalayana safaaradda Soomaaliya dalka Malaysia sidoo kale waxa garabkayga taagan gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed Malaysia Mr. Ahmed Ahmed runtii farxad ay noo tahay in barnaamij sidaan u quruxda badan soo qaban qaadino juhdi iyo dadaal badan aan gelino ra'iisul wasaaraha mudane Xamza Cabdi Barre waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala xilka ku fududeeyo ku faraxsanahay inaad ka mid ahayd ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Malaysia عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة waxaan u taaganahay xalfadii ducadii soo dhawaanta ee ra'iisul wasaaraha anigoo ah Badr Xuseen Sandool matsalayana safaaradda Soomaaliya dalka Malaysia sidoo kale waxa garabkayga taagan gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed Malaysia Mr. Ahmed Ahmed runtii farxad ay noo tahay in barnaamij sidaan u quruxda badan soo qaban qaadino juhdi iyo dadaal badan aan gelino ra'iisul wasaaraha mudane Xamza Cabdi Barre waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala xilka ku fududeeyo ku faraxsanahay inaad ka mid ahayd ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Malaysia anagana ka mid nahay dadka waxa waaye junior-ta hadda soo baxayso kana qalin jabiyay haddana shaqeeyo waxaan ku leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala الله كون فضيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومد الصومالية والسلامتين. عوضة وحا أنتم معنا إنا كخيب قلنا برنامج كلباردقة رئيس الوزراء عصوبة دولة الجمهورية الفدرالية الصومالية. حفلة آدو قرح بدنا ماشي كده عليه. مركا وحكى لي عليه كرنا إنا أدو إنه رئيس الوزراء إنه عصوب أقرب استغنوا على حسب هو ودي كرنا وحكى لنا إن شاء الله إله سبحانه وتعالى ودينا مركا بمانتنا ما شنتين ولا الكريم الممثلين. السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha Juun 2022 waxaan si waafaqsan qodobka 9aad faqradiisa da ee dastuurka ku-meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aan xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya u magacaabay mudane Xamza Cabdi Barre oo garabkayga midigta taagan runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan baray iyana qodobadan kalsoonidaada isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono hariyo habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga u gudan lahaa taasoo ay ugu horeyso kadib dabcan kadib markaan kalo insha Allah kalsoonida golaha shacabka Somali community in Malaysia, distinguished guests,
all protocols are observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I feel incredibly honored to speak to this special gathering today. When I was told I would deliver this speech, I was so thrilled. Still, it also brought back good old memories of my years at the International Islamic University, Malaysia. In addition to the hospitality of the great people of Malaysia, I remember when I was entering my first year of university, I was extremely excited, but at the same time nervous. Reflecting on the whole experience now, I'm excited to have the opportunity to experience IIUM. From 2008 to 2010, as a student, I received professional and quality studies, professional and supportive.
Iya